بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحنيهني عصبا كجرنا وعشر كيني لبعضا وعن استعمالنا ثيم كان استعمالنا نشاطنا ونيس أبلود قرينيا سياد مركا ودتي ستان كان لصعتان عشر كان إن شاء الله تعالى. فايلشان وباهنا هاي يمكنكم حينو يا CSS يا image يا JS. index iyo login page iyo xagana waa readme ama waa lesson key. Warta waan kala habeynayna inta waan habeynayna waxaan sameeynaa folder cusub waxaan u bixinaynaa assist marka waxaan ku soo gureynaa wixii CSS ka iyo image ka iyo JS ka waxaan sameeynaa folder kala sameeynaa folder ka waxaan bixinaa template waxaan ku gureynaa isna waxaan ku dhex sameynaa laba folder oo kale laba file oo kale oo ah header .php iyo mid kale aan sameynayno ah footer .php waxaan sameynayna oo kale headerkii waa ka footerkiina hoostu noqonaya waxaa noo soo hadhaysa markaa qeybtan sideka ay noo soo hadhaysa waxaan sameynaynaa iyana u bixinaynaa markaa qeybteeda side.php intaaba waxaan dhex gelinaynaa folder kale oo la dhahaa maamul ama admin intaa gebigeedaba halkaasaan dhex gelin intaa halkaasaan gelinaynaa waxaan tegaynaa haddaba templatekii intaa markaan sameynay waxaan soo sameynaynaa haddana config.php baan sameynaynaa config.php waxaan ku qoraynaa dhammaan wixii khuseeya SQL ka ama connectionka aan ku qoraynaa halka waxaan kale sameynaynaa isna mid kale file kale oo la yiraahdo functions.php sameynayna qaabkan u isticmaalayno intaa hadda markaan sameynay haddaba waxaan tegaynaa maamul wadana dhex tegaynaa waxaan soo sameynaynaa file kale oo la yidhahdo index.php kana markaa kusoo sameynaynaa haddaad iminkaan soo refresh garayno websitekeena ama browserkeena waxaad arkaysaa inoo shaqeynayaa kani inoo shaqeynayaa marka waxaan sameynaynaa waxaan tegaynaa index waxaan kasoo qaadaynaa inta headerka noqonaysa headerka inta noqonaysa aan kasoo qaadaynaa haddaanu tagno ilaa right click inspect element magnifierkii noo soo saar marka halka inoo soo saar ama waxaad tirahdaa ilaa halka iyo halka waa maxay ilaa intaas muxuu noqonayaa ilaa header wixii ka sareeya ayaynu baahanay ilaa header wixii ka sareeya ayaynu baahanay waxaan tegaynaa halkan header inoo eg waan soo bilownay soo bilownay halkan waan soo bilownay halkan gaadhin ku noqonaynaa header halkan waa mainkii contents wixii intaa ka sareeyaan
wax intaa ka sarreeyaan soo copy garanayna markaa waxaanu geenaynaa kala idhaahdo template kadibna header xagaasaan ku save garanaynaa inoo save garee waxaan tegaynaa haddana index html waxaan soo saaraynaa report visits soo mahayna intaa halkaasna waxay nooga jirtaa main control visit sites reports soo arki maysin ilaa setting la idhaahdo contact form ilaa contact form baan dooneynaa isna waa kan sidebar waa kaa kan laftigiisa xagga kala geey hirka gee laftigiisa sidebarkaasaan u baahanay haddaba intaa sidebarka oo dhan inoo soo qaad waxaanu geenaynaa markaa side wuu diidan yahay midabkiinu saaro sababto waa maxay aduu fiirsa iminka magaca side maxaan siinay coma xagga dhibic noqon lahaa coma ayay naga noqotay markaa waa khaldan yahay halkaasaan masaxaynaa waxaan ka dhigaynaa point baan ka dhigaynaa ma full stop saad u taqaanid kolba footerkan haddaba wax keenaynaa iminka footerkan keenaynaa waxaan keenaynaa index html hoos baan u tegaynaa hoos xagga hoose u fiirso wax isticmaalaya td buu isticmaalaya td baad garanaysa waan filayaa waa td waxa weeyaan maxay td waxa weeyaan table weeyaan waxaan leenahay footer intaa markaan sameynay haddaba waxaan tegaynaa index waxaan leenahay require once waxaan doonaynaa markaa template folderka template la idhaahdo waxaad naga soo qaadataa header.php maxaan u nidhi require aan odhan weyna include kaas maxaan udhi require maxaan u nidhi aan u odhan weynay include go side kana waa footer waxaan tegaynaa haddaba halkeenii waxaan leenahay maamul wuu isku dhex yahay soo arki maysi wuu inoo soo saaray laakiin maxay wuu isku dhex yahay index.php wuu isku dhex yaasay sababta waa maxay waxa weyaan xaggii css-ka ayaan sax ugu xidhnay maxaa saxaan ugu xidhnay inanka css-kana wuxuu ku dhex jiraa halkee assist buu kusii dhex jiraa innaga laakiin haddaan halkan tagno header baan tegaynaa halku kusii dhex jiraa u fiirso halku ku dhex jiraa wuxuu ku dhex jiraa css buu ku dhex jiraa maxaa xala markaa waxaa xalan sameyn u fiirso kaa halkaasun baan sameyneynaa soo refresh kare haddaba inoo soo qabtay soo arki maysid okay inoo soo qabtay laakiin weli waxaan shaqeynayn sookayaalkan isku laalaamayay maxaan shaqeynayn waxaan shaqeynay failashii javascript ka shaqeyn maayaan maxaa xala markaa waxaan tegaynaa xalku wax weeyaan halkaasuma dhex dhiganaya isna assist waaba intaaba gebigeeduba inaa soo refresh gareen
okay isku laabayna sax buu shaqeynaya wadiga arkayimka sidii saxda ahaa ayuu shaqeynayaa marka imka toggle baa la isticmaalaya waa javascript ama jQuery ayaa la isticmaalaya si isku laalaamo toggle iyo hidden not show toggle ka slide toggle baa la isticmaalaya slow baa la isticmaalaya waa casharada jQuery weeyaan intani waa jQuery weeyaan insha Allah taala ilaahay inoo sahlo inaan maalmaha kamid aan qaadano marka requirement-kii iyo qeybteena horeysay panelka saasaan ku daynay marka insha Allah taala waxaan eegaynaa hadhow ama casharkan kan ku xiga saan uga faa'iideysan karayno file ka la yiraahdo functions saasi ka faa'iideyso. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.